Hi guys, assalaamu calaykum. Waa aniga Cabditax Ibraahima. Halkaad nagala socotaan waa Somaltech. Magacii waan bedelay, waxaan ka dhignay magaca Soomaaliya. Maadaama casharada ku shanaxay Soomaali, waxaa laga noo fiicnaatay inaan ka dhigno channelka Soomaali. Okay. Marka hadda casharada qaar ku haato anagoo Python trick isticmaalna qaanaad ku aragtid Somaltech, wax difference uma dhexeeya ee channelku waa channelkii marka magacuun baa isbedel. Okay. Maanta waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaan prerequisites of telecommunication ama telecommunicationka markaad bilaabaysid shay aad u baahantahay inaad ogaatid ayaynu course gaar oo socon doonaa xoogaa qaadan doona aynu ku eegi doonaa. Okay, haddaba qofku markuu doonayo telecommunication inuu bilaabo ama shay isgaarsiineed waxaa lagama maarmaana inuu basic concept ka haysto mathka ama uu yaqaan in ku saabsan ama xog ku saabsan maxay ahayd xisaabta sidoo kale inuu yaqaano physicska. Okay, aniga kula hadlaya hadda anu ma qof physicist ama qof maxay ahayd xisaabta aad iyo aad magaranaysa ugu dheereeya, laakiin waxaan ka bartay in inta iga anfacaysa ee communicationka laga baahan yahay wax xisaabin kariyo mostly inta laga baahan yahay waa intaas. Okay, casharkan waxaan ku eegi doonaa physicska. Okay, basic ku saabsan waxyaabaha lagaga baahan yahay. Okay, marka doonsid inaad telecommunication bilowdid ama communicationka course outline-keena saddexdan shay baan ku eegi doonaa inaynu introduction to physics eegno. Physicsku waxa uu yahay introduction ahaan aynu eegno, sidoo kale wave-ka inaynu eegno oo shayga ugu muhiimsan ah oo inta badan waxaad ku arki doontaa wave ama wave propagation. waxaas oo dhan mostly ku base garaysan yahay communicationku inuu propagation sameeyo. Okay, iyo characteristics fara badan oo uu leeyahay wave-ku. Intaa markaynu maxay ahayd eegno waxaynu eegi doonaa force-ka isaguna waxa uu yahay. haddii ay ka maarmi weydana casharo kale oo yaroo muhiima iyagana waynu eegi doonaa marka aynu saddexdan dhamayno. Okay, marka tan waxay kuu saamaxaysaa inaad hadhow casharada waxaynu ka hadli doono ama shaydan hadhow ka sheegi doono waxyaabo badan baad oran karaysaa war shaygan uu ka hadlayo sheekhu waa maxay dee ma fahansanin ba macnaha. Okay, si aan taas kugu dhicin waxa aad ku baran doontaa waa fiil kasta waxa loo sameeyo wax loo yaqaan prerequisites ama shay hordhac u ah shayga uu baranayo oo u tilmaamaysa shaygan waxa weeye. Okay, introduction to physics kan eegi doonaa. waxaan ku eegi doonaa waxa uu yahay physicsku. waxaan soo qaadanay paragraphkan ama maxay ahayd isagan kooban marka wuxuu sheegayaa si daacad marka loo sheegayo way adagtahay in aad define karayso ama aad macno sax ah aad siiso iyo definition sax ah aad siiso physicsku waxa uu yahay, sababtoo ah physicsku waxa uu isbedbedel buu sameynaya. Okay, markasta horumarku uu bato waxaa ku imanaya physicska inuu horumar sameeyo. taasna waxay keenaysaa in ay adkaato in maxay ahayd la qeexo ama macna saxa oo definition saxa la siiyo physicska, waayo mar walba waxa la discover garanayaa oo la ogaanayaa theories ama maxay ahayd aragtiyo cusub. Okay, laakiin inta badan waxaad aragtaa in la doorbido in lagu dhaho maxay ahayd physicsku waxa weeye waa dhigashada shay'iyada iyo waxyaabahan inagu hareeraysan energy-ga waxyaabahaas lagu dhawaad arki kartaa. waana sax waxa la eegayaa basic ama sidii hore general ahaan waxa uu physicsku u ahaa, waayo waxa weeye physicsku shay hore loo isticmaali jiray. Okay, haddii aad maqasho tusaale ahaan oo kale ereyga physics, macnaha physics inta badan waxa weeye ereygan waa Greek inta badan. marka ereygan Greek magaciisu waxa weeye waa nature, shayga waxaad baranaysaa dabiici ahaantiisa. marka haddii aanu soo koobno physics waxa uu noqonayaa waa barashada shay'iyada energy-ga iyo maxay ahayd nature ahaan siduu u jiro universe-kan inagu xeeran ama dhulka inagu xeeran. Okay, ama environment-kan. Okay, aad ku baranaysid iyo shayadaas iyo materialskooda iyo waxyaabahooda oo dhan ayaa loo yaqaanaa maxay ahayd physics. laakiin exactly si saxa ama maxay ahayd macna sax oo waqtiga hadda ku habboon ma jiro, laakiin si generalization ayaa loo sameeyaa. Okay, marka inta waxaan kaga gudbaynaa
waxa uu yahay physicsku. Okay, xaggan waxaan ku eegi doonaa waxyaaba loo yaqaano SI unit ama prefixes. Prefixeskan waxa weeye waa shayo horgalayaala. Inta badan waxaad ku arkaysaa markaad ku jirtid maxay ahayd fielkan telecommunicationka inta tusaale ahaan kale lagu yidhaaho walba 10 kilohertz megahertz milli waxyaabahaas oo dhan. marka qofku hadduu waxaan ka sheekeyn ano waxaas imika waxaad halka ku haysataa markaan dad xisaabaadka sameeyno aad ku raa waxaad haysataa tusaale 10 kilohertz baad haysataa 10 kilohertz hertz wad garatay waa macnaha waxa weeye waa shayga lagu cabiro ama unitka uu leeyahay frequency-gu. laakiin kilogan bad fahmi weyday kilogan muxuu yahay. Okay, kilogan waa 10 power 3 wayna arki doonaa. marka shayada xagga inoogu qoran baa la sheegaya. marka waxa ka soo bilaamayaan 10 to the power 24 marka iota zeta exa peta tera giga mega kilo hecto dika waxaas oo dhan ayaa maxay ahaydey loo yaqaanaa prefix ama symbol used in la sheego power of 10 la sheegayo shayada loo isticmaalayo. waana important markaad ku jirto fiilkan marar badan bay kaa soo bixi kartaa. intuu qofku u qori lahaa 1000 oo kale ayuu ku oran karayaa waa 10k. marka macnaha waxa weeye shaygan wuxuu ku sheegayaa waa physics-ka loo isticmaalayaa. sidoo kale waxa loo isticmaalaa power-ka in lagu sheego power 10. Okay, inta haddii aynu ku dhaafno sidoo kale xagga waxaad ku arkaysaa macro waa la isticmaalay laftirkeeda waa 10 power minus 6 nano baa kamid oo 10 power minus 9 ah. pico baa kamid minus 12 weeye minus 15 vimto ato zepto iyo yoto. Okay, marka waxa weeye waa 24 waxa is dheer yihiin 3 marka waxa weeye waa waxa ka bilaabmaysa minus 24 qaar ka sii badan way jiraan laakiin mostly intan waa la isticmaalaa. Okay, haddaba waxaan ku eegaynaa common prefixes-ka loo yaqaan maxay ahayd ama inta badan la isticmaalo marka lagu jiro fiilkan. Okay, kuwan casaanka uu inoo marsan yahay sida meegada kiiladan ku sheegayay iyo sinti iyo maxay ahayd milli ayaa maxay ahayd ayaguna maxay ahayd loo yaqaan. marka sida xisaabaadka ku soo dhigato kale 10 power 9 kan markuu shaygu uu yahay positive macnaha power-kaagu markuu positive yahay wuxuu ku sheegaa shaygan in lagu dhufanayo isku dhufasho meesha ay taalo oo shaygan uu yahay positive-ka oo macnaha uu xagga positive-ka u badanayo. Okay, xagga ay sheegayso shaygan hadduu minus yahay uu shaygani uu yahay macnaha dimkan haysto sanahana kale milli oo kale hadan haysta ama micro taa macnaheedu waxa weeye waa 0.50 iyo tirada ku raacsan ayuu ku sheegayaa. marka aynu ka hadlayno weeye macnaheedu milli oo kale aynu sheegayno ama aynu sheegayno micro oo kale ama aynu sheegayno maxay nano oo 10 power minus 9 ah. marka prefixes-kan waxaynu soo qaadanay casharkan maanta ugu soo qaadanay waxa weeye waa shay ku muhiim markaad shay ku dhex jirto fiilkan telecommunication-ka in badan kugu soo noqon doona. marka waxaan isku daynaa hadba shayada ugu muhiimsan ama maxay ahayd prerequisites-kan soo sheegnay cashar ka muhiimsan yahay inaan ku soo koobno mostly intuu qaadanaya. marka casharka markaan dhamayno ayaynu casharadeeni telecommunication-ka u guda gali doonaa maadaama ay confuse kugu iman karayso oo qofka ardayga confuse ku iman karayo. marka intan baynu qaadan doonaa. marka casharku maanta intan baynu ugu ekaan doonaa. waxaan ku sii jiri doonaa introduction-kan ilaa dhowr cashar oo kale. marka casharka maanta intaas baynu ugu ekaan doonaa. insha Allah ta'ala casharkan kan ku xigeentan ku kulmi doono waxa si casharadan aanu sameeyno casharo lamida waxaan ka codsanaynaa inaad channel-ka subscribe saarto asxaabtaadana la wadaagto haddii aad maxay ahayd u baahantahay maxay ahayd inaad shayadan aad hesho waxaad igala soo hadli doontaa Instagram-kayga oo aan xagga hoose linkiga description-ka soo dhigay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.